arintii u dhaxaysay Somali Cowboy iyo Xuseen Jaamac waxa ay gaartay meeshii ugu sareysay waxaana la isla gaaray heer culimadii ay ka soo hadasho nimankan dagaalka ka dhaxeeya intaan u gudagelin sheekadan iyo faahfaahinta la xiriirta dagaalka raggan ay isku haystaan waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay in aad soo booqato oo page-ka aad follow gareyso maasanid Xuseen Jaamac iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Somali Cowboy ayaa labadii maalin ama saddexdii maalin ee ugu dambeysay waxay isku haysteen social media gaar ahaan aalada TikTok raggan ayaa dagaalkooda waxa uu ka soo bilaabmay in Somali Cowboy markii hore uu ka hadli jiray arrimo la xiriira qadiyada dalka iyo Soomaalinimada waxaana la sheegay in Xuseen oo arintaas ka xanaaqay uu faragashtay taasina ay keentay in meel hoose la isla gaaro oo muuqaale hore u baxay social media mar hore soo galayna la keeno taas oo muujinaya in Somali Cowboy muuqaaladiisii hore uu waxyaabo badan oo diinta ku saabsan oo kaga hadlay Somali Cowboy iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Xuseen Jaamac ayaa hadda midka kale waxa uu ku eedeynaya in midkan uusan ahayn Soomaali dhab ah oo uu yahay Ethiopian gaar ahaan Oromo halka Xuseen Jaamacna uu sheegayo in ninkan islaamnimadiisa iyo muslimnimadiisaba ay shaki ku jirto hadaba halkaas marka ay sheekada marayso ayaa waxa arintan soo farageliyay qaar kamid ah culimada Soomaaliyeed waxayna ka hadleen arinta la xiriirta Somali Cowboy iyo sidoo kale sheekada la xiriirta in diinta uu u gafay kuna jeesjeesay mid kamid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay arintan ayaa waxa uu sheegay in muuqaaladii uu ka arkay social media ee ku saabsanaa arinta Somali Cowboy ay tahay mid aan loo dulqaadan karin waxa uu ninkan culimada ah sheegay in Somali Cowboy diinta uu ku jeesjeesay sida uu sheegayna inta qol isugu keenay dad gaala ah oo dumar u badan oo istihzaa ama jeesjees gelinayo diinta islaamka taasina ay banaaneen oo qofka muslimka saxda ah ay qalad ku tahay asbuucana waxa la soo diray meel walba la gelinayay nin Soomaali ah kole hadda waxa weeye YouTube-da meelahaas aad ugu jira oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa ku jeesjeesaya bal Ilaahay wuxuu ku sheegay inuu yaan naag muxuu noqon waay qola cadaano meel ku soo xareystay oo wax ka rabay buugna waa qoray baalay buug buu qoray marka buugiibu meel ba gaarsinay marka ninkaasi Cabdi Iftiin baa leeyahay kulay aad baa loo wareejinay maalmahan ama Somali Cowboy waxna asirada Somali way ha Somali Cowboy waxa uu sheegay in muuqaaladan aysan ahayn muuqaalo sax ah oo ay tahay muuqaalo la soo edit gareeyay la iskuna keenay halka Xuseen Jaamac markii lagu eedeeyay in uu yahay Ethiopian nacab qarannimada iyo wadaniyada in laga sheekeeyo uu soo saartay muuqaal muujinaya in hooyadii iyo aabihii iyo faraciisaba ay yihiin Soomaali Xuseen Jaamac oo dadka social media ku jira ama daawada ay u yaqaanaan in uu yahay sirdoon xoga badan banaanka keena ayaa dadka qaarkood waxa ay ku taageersan yihiin arintan Somali Cowboy uu ka keenay Somali Cowboy inta badan waxa uu ka hadlaa wadaniyada dal jacaylka iyo waliba dad jacaylka iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ay isugu duubnaan lahaayeen tan iyo markii ay soo ifbaxday in Ethiopia iyo Soomaaliya ay ishayaan sanadihii la soo dhaafay marka dhalinyaro ama dadka qaar ay isku qabtaan social media inta badan waxa dhacda in qof kamid ah la gaaleysiyo oo diinta islaamka laga saaro arintaas oo social media ku soo badanaysay sanadihii dambe ayaa waxa dhowr jeer ka hadlay culimada Soomaaliyeed waxayna sheegeen in aan si fudud oo qofka lagu gaaleysiin karin diinta islaamkana looga saari karin